بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. النبي عليه الصلاة والسلام ayaa waxaa maalin u yimid nin weydiinaya su-aal khaas ah. su-aashiisi waxay ahayd su-aal cid kasta oo caaqil ah maanta qabta. su-aashu waxay ahayd: mata saaca yaa rasuul allah sala allahu caleyh wasalam, rasuulka ilaahow, saacadda qiyaamaha goormay dhacaysaa? qof kasta oo mu'min ah oo caaqil ah wuxuu ka fikerayaa maalintaasi qiyaamaha ah, ama wuxuu ka fikerayaa dhimashada. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi: alkayis man daana nafsah wa camila lima bacda almowt, oo kamaa qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam. qofka caqliga badan waxa waaye qofka naftiisa xisaabiya. waxaa loola jeedaa waxa carabkiisa ka soo baxa oo uu dhahay uu xisaabinayaa, sida imaam nawowi uu yidhi oo kale. wuxuu yidhi waxa kaa soo baxayo saddex midkooduu noqon karaa, ama wuxuu noqon karaa ficil ama orah. markay kaa soo baxdo dembi ku gelinayso, ka istaaguu dhahay. orahda ha dhihin, ficilkana ha samayn. ama wuxuu noqon karaa, uu yidhi imaam annawowi, wax khayr ah oo ilaahay kitaabkiisu ku sheegay ama sunnada nabiga calay salaam lagu xusay ama kitaabka iyo qur-aanka waafaqsan, oo haddaad samayso ajir iyo thawaab aad ka helaysid. wuxuu yidhi ku degdeg samee. markaas wasaaricu ay hoos imaanaysa, oo ah wax walbo khayr ah u degdega inaad samaysaan ama aad dhahdaan. wuxuu yidhi haddii aad kala garan weyso labadaasi midkuu yahay oo shaki ku gala, markaasi xadiiskii dacmaa yuriibuku waay. markaas wuxuu yidhi ka joog meesha ku istaag. marka qofka caaqilka ah wuu xisaabtamaya maalinta qiyaamaha. noloshaada oo dhan ayaa filim ahaan loo soo bandhigaya. waa naxaysa, xubnahaaga kugu markhaati furaya. aayaddan ku bilowda waxay ahayd: yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allah waltandur, ilaahay ka cabsada, waltandur nafsu maa qadamat liqad. waxa naf ay horumarsatay ha fiiriso. meeqaa wanaag, meeqaa salaad ayaa horumarsatay, meeqaa qur-aan akhris aada horumarsatay, meeqaa dikriga habeen walba aada akhrinaysay aada horumarsatay, ama subax walbo. meeqaad oo soon oo isniin iyo khamiis aada soomaysay ayaad horumarsatay ramadaanka kadib. meeqaad horumarsatay oo qur-aan akhris ah, oo ilaahay rasuulkiisu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam, xaraf kasto waxaad ka helaysaa xasana. walaa aquulu alif laamiim xarf u dhahay rasuulka, walaakin alifun xarf, walaamun xarf, walaamun xarf, wa miimun xarf. alifka waa xarf, xasanaad ka helaysaa ugu yaraan 1 xasano ilaa 10 xasano, ilaa ilaahay wuxuu gaarsiinayaa ikhlaaskaaga iyo qalbigaaga aad ku akhrinaysid intuu la egyahay. idan marka ma isu diyaarisay maalinta qiyaamaha? ninka su-aasha weydiinaya wuxuu yidhi: mata saaca, maalinta qiyaamaha rasuulka allow inaan isdiyaariyaan rabaaye goormay dhacaysaa? nabiga calayhi salaatu wasalaam su-aashii wuxuu ugu jawaabay su-aal. waa noocyada oo maclimiinta dadka waxbara ee qaarkood ay isticmaalaan. su-aalaha qaarkood su-aal kale ayaa lagu jawaabaa. su-aaluu ugu jawaabay wuxuu yidhi su-aashaasi si aan toosayn macnaheed waxaa waaye cid og ma lahan maalinta qiyaamaha. nabiga calay salaam xadiisu jibriil, xadiiska la yiraahdo oo jibriil u imaanay, oo su-aasha qiyaamaha xadiiskaasi lagu xusay 40 xadiiska labaad. rasuulka calay salaam wuxuu yidhi ruuxa weydiinaya iyo ruuxa la weydiinaya cid taqaana ma laha. jibriil lama yaqaano maalinta qiyaamaha ay dhacayso,
النبي محمد عليه السلام ما يقان عد تقان مالها إلهي سبحانه وتعالى وحياله وقريه أي كمتها إلهي وحلي أكاد وحان كسكتي إن نفتي ذنك قريه إلهي سبحانه وتعالى سيد الله قريه لذلك معنى تاسي عد تقان مالها علماء حلين حكمته كجرت وحوالي الله قريه قفك إنه مركز الديار هذا حتى ملك المدور كيوانو ديار هذا من الشيخ أو عالم هي وحلو يدي هدي أو ملك الموت وكو يماذو وكو ليه لها محاد اسكبداليسا هدان كسية 24 hours لاتي 4 ساعات تسؤالش أرددان ويدي أو أن وحوديقو دروستا مساجدها أما مسجد كان كبحيو marka arday walba markaan weydiiyay laati 4 saac hadii malakul mood uu nasiyo qof walba wuxuu sameyn lahaa arday wuxuu yiri sujuudaan gali lahaa ma salaad inaan soo weysa qaato salaada aan galo sujuudaas aan laati 4 saac aan sujuudsanaan lahaa wuxuu rabaa inuu ku dhinto isagoo sujuudsan waayo aqrab ma yakunu maaragtay العبد إلى الله سبحانه وتعالى وهو ساجد وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث وحاجر أدوانك وحو إلهي وقدو يهي مركو سجود سنة مركو حربا إساقو سجود سنة إنو دينتو سجود وح سهلا معه وحال يري وقت نبي نوح عليه السلام أثر وحاجره نبي نوح عليه الصلاة والسلام إيا وحو صومري هوين أوينيسو ويل كذا كالينتين أو صغيرين وماركتي صغيري واي wuxuu ku dhintay 300 sano marka libin wuxuu yiri maamadii ayuu rabay inuu nasaxeeyo wuxuu yiri wiilkii Ilaahay u naxariisto ma qojiray markaas waxay tiri 300 sano marka ummadahaas waagaasi kun iyo ka badan ay gaari jireen marka daas waa 300 sida sagiir oo kale noqonaya markaas wuxuu yiri waxa iimaan doonto ummad la yiraahdo ummatu Muhammad da'doodu waxay u dhaxan doontaa 60 iyo 70 average kooda waxa la isku celcelis markaas waxay tiri wuxuu yiri ummadaas maxaa ugu nasaxeen lahayd markaas waxay tiri ummadaas hadaan ahaan lahaa aniga waxaan sameyn lahaa 60 sano aan sujuudi lahaa soo 60 sano sujuudan ku jiri lahaa الله أكبر فيري دادكاسي إنه هوريي سيدينتو أفهمين يو إلهي سبحانه وتعالى وحو وجعلي هاي إني غبان إني وقت قليا مركا لح ذا صنو وسجود سنان لها دي أو ومدى سمعنا بها وحي ولجدا وقت قبو يري هاي ما دام وقت قبو يري هاي با وقت قبو لن وحان قلين لها إلهي إنان رالي قليا ما ننت قيامها سو ديارين تيدا qofku wuxuu ku fikiraa markuu ogaado maalintaas waxa dhacay waa maalin cabsi badan waa ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu quraanku ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqullah waltandur nafsu maa qaddamat liqad naf waxay horumarsatay ha fiiriso maxaa kaa horeey nin sheekha wuxuu yiri maalin masaajid aan galay masaajidka markaan galay anoo salaada xirtay dhinaciga nin ku tukanayay marka isagoo sujuudsan ayaan waxaa maqlay isagoo hoos u dhahayo allaahumma ilaahu maa kaana baynii wa baynaka waxa anigii adiga ilaahu subxaanahu naga dhaxeeyo oo min adunuubi macnaha facaltuha oo dembiyada aniga aan sameeyey facfu canii ilaahu iska keena wamaa kaana baynii wa bayna axadin min khalqika faxamilhu canii ninka waa oynaya wuxuu leeyahay waxa aniga iyo qof kale ayna dhex mareen ilaahow iga xambaar iyadoo la ogyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo sheegay cid kale waxaad ka samaysay ilaahay inuusan kaa cafinin ilaa ciddaasi ku cafiso ninka sheekha wuxuu yiri ninkaasi isla markiiba waa degdegay markii oo salaada aan ka baxay suusan ii dareemin ninkaasi waa aqaanaa wuu yiri waa nin aad u soo dhoora waa nin aad u afgaaban oo dikri badan afkiisa weligay ma arkin isagoo hadal badan wuxuu yiri waa nin aad iyo aad runta iyo xaqa u sheega waa nin aad iyo aad ugu dadaala khayrka iyo dacwada wuxuu dhahay qof uu dulmay ma maqal
laakiin wuxuu leeyahay ilaahu iska kaa cafi wixii dembi aniga adiga waa dembi waxaa jiro xaqullah ah iyo waxaa jiro xaqul aadamiy wixii xaqul aadamiy haddaad dulmi samayso ilaahay kuma cafinayo taas waay dadka muslimiinta ama culummada waxay dadka u xusuusiyaan ilaahay subxaanahu watacaala markaad dembi ka gasho astaqfirullah 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 haddaad dhahdo oo aad toobad keento ilahay wuu ku cafinayaa toobadana ay kaa tahay yaa ayuha aladiina aamanuu tuuba ila allahi tawbatan nasuuxa toobad dhamaystiran ay kaa tahay ilahay wuu ku cafinayaa laakiin mushkiladdu waxaa waaye markay dembiga uu yahay qof aada dembi ka gashay rasuulka calayhi salaam dadku asxaabtiisa hor istaagay wuxuu dhahay qofkii wax uu dhibsaday aan ku sameeyey maanta noocii doonta ha ahaato maanta iga arguduu dhahay intaan la gaarin maalin oo cidna cid kale wax u qaban karin oo cafis aan la weydiisan karin maanta ama icafiya ama maanta iga argutuu dhahay waa rasuulkii ilaahay subxaana wa tacaala waa xuquuqul insaanka waay maantana waa ogtihiin dulmiga ka jira adduunkao dhan dulmiga ka jira waddankana soomaaliya dulmiga ee madaxda qaarkood ay ku sameynayaan dadkooda shacabka dhibaataysan intaasoo sanan dhib ku jiray waxaa ka mas-uul ah ilaahay uu weydiinayaa waqifuuhum manaa ilahay wuxuu leeyahay joojiya maxaa lagu sameynayaa innahum mas-uuluun su-aalo fara badanaa la weydiinayaa waa yowm alas'ila waay maalinta qiyaamaha dadka maalinta qiyaamaha markay isku buuqaan oo cabaar muddo dheer ay taagnaadaan oo maaragtay 50,000 sano lagu qiyaasay oo dadka ay jaha wareeraan yowma yafiru lmar'u min akhiih wa ummihi wa abiih wa saaxibatihi wa baniih likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nun yugniih maalin qofka uu ka cararayo hooyadii dhashay aabbaha ayaad ka cararaysaa aabbihii ilmihiisuu ka cararayaa ninkii naagtiisuu ka cararayaa xaaskii ninkeeday ka cararaysaa qof walba maalintaasi dhib ayaa haysta maalintaas dadka saaska markay u jaha wareeraan oo meel ay aadaan ay waayaan ayaa markaasi waxay u jahaysanayaan nabi aadan meel lagu sheegay way u tegayaan abunaa aadam waa aabbihii waxay leeyihin abunaa aadam waa dhibaatoonay wixii doona ilaa culammada qaar tafsiirka ay dhahaan xadiiskaasi dadka wixii doona xukunka ha ku dhacay waxay leeyihiin tana cadaab tanaan ugu filan ugu markaasi dadka ay dhiban yihiin oo ay jaha wareersan yihiin dadaa waxaa fadhiya harka ilaahay subxaana wa tacaala yowma laa dilla ilaa dilla maalin aan jirin ilaa dillu maalin aan jirin har ilaa harka ilaahay subxaana wa tacaala dadaa waxay haraysanayaan sadaqadii almar'u yastadilu bidilli sadaqatih oo kamaa qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam qofkii wuxuu sadaqaystay uu har ka dhiganayaa sadaqadooda intay la eg tahay har ahaan ayaa hor fiirsanaysaa meesha dadka qaarkooda dhidid ka socdo dhididkan wuxuu la ekaanayaa qofka dembigiisa intuu la egyahay ilaa qofka qaraq macnaha oo biyihii markaasi sanka iyo afka ay soo gaaraan waa dhididkii ay soo gaaraan qaaraa nasanayo qaara qabow ku jiro air condition ilaahay uu sameeyey waa har gooni ah waa madaxweynaha caadilka ah waa madaxda caadilka aan wax dhicin aan wax musuq maasuqin aan qabyaalad aan samaynin oo alimaam alcaadil dadka qaarkood waxay u fahmeen madaxweynaha keliya yahay madaxweyne kelima qof walba mas-uul ah oo caadil ah har gooniya la fariisinaya isagana waxaa ku jiro dadkaasi 7 waayo oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu tahay 7daasi ee iyadoo kooban waxaa ku jira oo ka mid ah madaxweynaha caadilka ah ama madaxda caadiliinta ah idan marka dadkii markay jaha wareeraan oo meel walbo meelay aadaan ay waayaan waxay u carareen nabi aadan abuna aadan markaas waxay leeyihiin noo shafaaca qaad macnaheedu waxa weeyaan bax ilaahay waxaa noo weydiisaa xukunka inuu bilaabo maaha waxay weydiisanayaan jannana gee ilaahay janna noo weydii iyo ma aha waxay leeyihiin xukunkii ilaahay subxaana wa tacaala maxkamaddii ha bilaabo wuxuu leeyahay nafsi markaas isagoo sababeynaya nebi kastoo u tagaan sababuu sheegaya macnaha oo ilaahay u ka hortegi karin wuxuu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala maanta wuu caraysan yahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaasaan ka sameeyey ani nafteyda keliya inaan badbaadiyaan rabaa war idaaya maalintaas waxa waaye qof walba wuxuu ku mashquulsan yahay naftiisi
bini aadamka wuxuu u dhexeeyey wataqatacat bihim alasbaab aayadda qur-aanka dhehaysa wixii xiriir jiray oo dhana kala go-ay xiriir waalidnimo ma jiro macnaa aabbaha iyo caruurtii hooyadii iyo caruurtii xiriir dhan wuu go-aya aayadda qur-aanka ile saasuu leeyahay xiriirkii qaraabanimada wuu go-aya maalintaas xiriirkii qabyaaladii oo maanta jagalis ugu geen jiray iyo wiil maskiina wuxuu yidhi jaamacadan ka soo baxa shahaadada muntasaraan kaga baxuu dhahay Soomaaliya akaantum fiicnaa noqon karaa laakiin waxaa lagu xiray uu dhahay laba shay 2.5 in laba company oo weyn oo muqdisho ku yaal dulmiga xitaa meel kasta ma madaxda kaliya kambaniyaashu ka socda wiilku waxaa lagu xujiyey inuu la yimaado marka hore qof qabiilkiisa ah oo la yaqaano oo ku markhaati furca inuu qabiilkaas u dhashay waa laba inuu bixiyo shuruudaha 4.5 macnaheedu waxa waaye booskaas waxaa lagu bixinaya 4.5 oo ah dulmi oo ah dembi 4.5 oo dhan si u wada dhan tahay ayaa waxay tahay dulmi wada socdo waa sababta aan ugu noolnahay ilaahay subxaanahu wa tacaala caradiisa maanta maxaa dadka qulubtooda kala geeyey maxaa dadka maaragtay tawfiiq la-aanta maxaa keenay maxaa loo degi la-yahay abaartan iyo dhibkan maxaan ugu dhex jirnaa dagaaladan ama al-shabaab ha ahaato ama kuwo kaloo dowladdiid ha ahaato maxay u socdaan intaasoo ciidamo oo shisheeyo oo danaystayaala maxay noo dhex joogaan intaasoo dhan tawfiiqdii ayaa ummadda laga qaaday maxaa loogu qaaday ilaahay subxaana wa tacala xaggiisa mana dhinac kalea la aaday marka maalintaasi maxaa naga horay maalintaas waxyaalaha dhacay waxaa ka mid a iyadoo kooban oo in laysku diyaaray ee waajib tahay su-aashii waxaan ku laabanayaa mar kasto qisooyinka waa tartiib ayaan back and forth horay gaala ugu noqnoqonaya ninka sheeqa su-aasha la weydiiyey 4 saacadood haddaa haysato maxaa iska bedeli lahay wiilkii maaragtay wiilasha ka mid ah ayaa wuxuu yidhi ana waxaan samayn lahaa sujuudaan geli lahaa qisadii haweentaan idinkaga sheekeeyey iyo nabi nuux sheekhii oo su-aasha la weydiiyey wuxuu dhahay aniga waxba iskama bedeli lahayn sheekhaas wuxuu saas u yiri dhaheen culummada wuxuu ilaahay faray maalintii uu dacwada iyo diinta uu soo galay ayaa maalin kasta 24 hours uu ku mashquulsan yahay marka macnaheedu waxa waaye inuu isbedel sameeyo maaha 24 hours haddii la siiyo malakul mawdka intii uu sameynaya sababta qorshe wuxuu samaystay oo ilaahay u karaar yahay saacad kastaba uu ku dhex jiro qofka muuminka marka saasaa loo baahan xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabu sida sayidna cumar uu dhahay oo kale naftiina xisaabiya saacad kasto maxaad samaysaa isweydii waxa aad samaysay ilaahay raalli ma ka yahay waxa aad samaysay ilaahay hadduusan raalli ka ahayn inaad joojiso waxa aad samaysay rasuulka wadadiisa calayhi salaatu wasalaam ma taha maalinta qiyaamaha dadka shalaynaya waxaa ka mid ah dadka islaamiska yaalka ah ama munaafiqiin ku tilmaan oo wadiyada badan oo diintooda gatay oo shisheeye u shaqaynayo si islaamka loo burburiyo si muslimiinta loo burburiyo sida muslimiinta loo dulaysto ka shaqaynayo oo lacag ku qaadanayo yabiicu diina ana xadiiskii ahaa subaxdii maalin zamaan waxaa la gaari doonaa dadka subaxdii ay gaali yihiin ee mu'miniin yihiin galabtiina ay gaaloobayaan culummada waxaa lagu fasiray ama dhaqankiisa dhaqan gaaleed noqonayo ama run ahaan uu u gaaloobayaa marka xadiiskaas waxaa qayb ka mid waxa waa yabiica diina diintiisuu suuq geynaya diintii la rabay in la ilaaliyo diintii la rabay in lagu dhaqmo diintii la rabay in la faafiyo diintii la rabay in sharaf lagu yeesho oo dhan uu suuq geenaya sida alaabta loo suuq geeyo oo kale macnaha sharaftiisa oo dhan uu suuq geenayaa loola jeedaa ummadda sharafteedu suuq geenayaa ummadda dhulkeedu suuq geenayaa ummadda baddeedu suuq geenayaa ummadda wixii ay wada lahayd uu ku gorgortamayaa dad kale madaxtinimada qaarkeeda dadka qaarkood saasay u arkeen meeshii xuquuqda dadka iyo ammaanada ay ilaalin lahaayeen innaha amaano u dhahay rasuulka ninkii madaxtinimada raadinaya faraha kala baxu dhahay waa ammaano oo aadan qaadi karin ninkaasuu yaqaan inuu daciif ahaa marka maalinta qiyaamaha u diyaargaroobo qofka mu'minka la rabo inuu u diyaargaroobo waa waxa qofka mu'minka inuu ku mashquulo maalin kasta uu xusuusta ay tahay sida xadiiska nabiga aan soo aqrinay calayhi salaatu wasalaam waxaan kusoo gabagabeynayaa maalinta qiyaamaha gruubka islaamiska yeelka aan dhahay walciyaadu bilahi ilaahaan ka magan galnay ayaa markii lagu jiro waatii marba meel ayaa loo guurguurayaa insha allah mar iyadoo faahfaahinaan ka sheekeen doonaa hadduu ilaah yiraahdo oo markaasi nambaro aan u samayn doono 1 2 iyo 3
laakiin hadda iyadoo kooban xusuusin aan nafteeda iyo idinka iyo qof kastoo ahlu khayr oo dhagaysanayo ama faafinayo in diyaargarow joogta aan samayno. ilaahay subxaana wa tacaalana niyadaadu daalacanaya. haddaad diyaargarow joogta aad samayso ilaahay tawfiiqda ku waafajinaya. maalin kasta inaad khayr ku jirto ilaahay ku waafajinaya. maalin kasta inaad runta ku mashquusho, xaqa ku mashquusho, alla ka cabsiga ku mashquusho, rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku dayso, sunnadiisa inaad raacdo inaad ku mashquusho. waxaa dhacaysa maalinta qiyaamaha iyadoo labada socdo ayaa la kala go-aya. sababtoo ah mugdi, marxalad mugdi ahaa la galaya aan wax la arkaynin. markaas qof walba wuxuu wax ku arkayaa camalkiisi. asalaatu nuurun, qofba qofkuu ka salaad badan yahay waa ka nuur badan yahay. soonkii qofka waxbuu ku arkaya. qur-aan akhriska, qur-aanka waa nuur. markaasaa dadki waa la kala baxaya. marka qola ayaa mugdiga inay ka baxaan nuuraa u shidmaya. nuurka waa maxay? marka isagu la socda qofkii nuurkaa la socdo, markaasaa hortiisa dhan a iftiimayso. ilaa aahaarta qaarkood ay dhaheen dhul magaalo kale, macnaha magaalo ka fog qofka inta ishiisa ay gaarto iftiinkiisa gaaraya. iftiinkaaga wuxuu ku xirnaanayaa cibaadada intay la eg tahay, digrigaaga intuu la egyahay, salaadaada, salaad badnaantaada, qiyaamu leylkaaga, qur-aan akhriskaaga, khayrka aad dadku samaysid, ixsaanka aad samaynaysid, sadaqada aad bixinaysid, wanaagga iyo khayrka aad ku mashquulsantahay. marka intaasoo dhan markaad samaynaysid iftiin ayuu noqonayaa. marka iftiinkaas markay helaan, marka qof walba marka dhankii uu cararayaa marka oo jiho oo malaa'igtii ay tilmaamayso. markaasaa qaar waa la kala baxayaa. qaaraa marka mugdi ku jiro, iftiinka ma helayaan. iftiinka markay heli waayaan, marka qoladaana u yeerayaan. marka waxay leeyihin unduruuna naqtabis min nuurikum, warna suga nuurka wax idinka qaadano. iktibaaska waxa waay soomaalida kale markii oo guryaha oo waagi hore dabka la shidan jiray, dhibil dabaa soo qaadanaysa in oo dabka aad qoryaha iyo ama dhuxusha aad ku shidato. waa in yar kaliya ka socodsa, in yar aan idinka qaadano. markaas waa shidanayna saasay ula jeedaan. marka qoladii marka waxay leeyihiin marka jeejees oo kale, qila irjicuu wara'akum waltamisuu nuura. waxaad samaynaysaan qur-aanka waa fii suurati xadiid, gadaal u laabta oo waxaad raadinaysaan nuurka gadaal kasoo qaata. gadaalaan kasoo qaadanaya. marka mar alle waxaa la yidhi gadaal markay u jeestaan oo gadaal ay fiiriyaan, ilaahay subxaana wa tacaala derbi weyn uu dhex dhigaya labadii gruub. markii uu dhex dhigo way weynayaan gruubkii nuurka watay. gruubka marka derbiga la dhex dhigay, aayadda qur-aanka say tilmaamayso, derbigan marka dhinacaan marka dab ayaa ka shidmaayo. marka qoladii kale dhinacoodii waxa waaye qabow, sida air condition ilaahay sameeyey oo qabow ah, iyo raxmad ayaa kusoo degayso. qolada marka way qaylinayaan, alam nakun macakum, war waa wada socon jirnay, saaxiibaan ahayn, masaajidaan wada aadi jirnay, war maxaa dhacay, xaggee aadeen? saasay leeyihin. markaas way soo jawaabayaan, waxay leeyihiin qoladii kale marka qur-aanka waa cajiib, waa qaabka wax u sooranayo. qur-aanka wuxuu leeyahay fatantum anfusakum, naftiina ayaad fidnaysaan. fidnada halkan waxaa weeyaan mashaakilaadka iyo macaasida iyo wuxuu ilaahay ka raalahan ay faraha ay la dhex galaan. haddana ma aydan toobad keenin oo maxay sameyn? watarabastum, waad ku nagaateen. markaas qofka waa aragtay dadka cusaada ah oo marka kastoo loo sheega khayrka dhahayo waa soo hanuunayaa. insha allah salaada waa bilaabi doonaa, insha allah masaajidka waa kusoo xirmi doonaa. marka qofkii waxaa caado u noqonayso macsidii markay caado u noqoto ma dareemaya inuu macsi ku jiray in kale. ninaan saaxiib ahayn oo markii dowladda carti la sameeyey kadib ay ahayd ayaa wuxuu yidhi waa tegayaa, waa ka qayb galayaa barnaamijkaasi. marka waxaan sameynay waa u dardaaranay. masaajidaan haynay, masaajidka qaybta qur-aanka mas-uulka ahaa wuu baxay, wuxuu naga maqnaa 2 sano. 2 sano kadib uu soo laabtay. marka madaxuu noqday. markuu soo laabtay ayaa waxaa dhacday, waxaanan hay warna sii, waxaan ku heshiinay haddii meeshaas isbedel khayr ah lagu samayn karo inaan laabano, aan ka mid noqono isbedelkaas khayrka iyo samayntiisa. ninka wuxuu yidhi niman yahow, meesha isbedel khayra lagama samayn karo, laakiin in la dhex joogana lama huraan waayo. markaasaan dhahay maxaa ula jeedaa isbedel khayr lama samayn karo? wuxuu dhahay marka qof walba ama dadka 90%
وتوجو إني واحد عن لالوش فساد أخلاقي وحي يعلن مركوان حني صوبتا نكام حو أها نن وذاد وها نن أهل القرآن وها وننكي قيبتي برامج قرآن وكيل نوغو أها انت مركان جوغني مساجدك مركا نيهو إلهي كعبسو لالوش كاسي فساد كاسي وحما كاسو قاري مركا وحوير وحان كل قنا فقه عصب أو لكاني استغفر الله العظيم وحوله وحان قوان كو قارني إن dadka qaarkood wax laaluush badan ay qaataan kuwa qaarkood waxay qaataan laaluush dhexdhexaad ah anaga marka waxaan sameynaynaa laaluush yar aan qaadanaynaa si aan ugu dhex jirno systemka oo markaasi aan u baajino laaluushkaas badan oo la qaadanayo marka waxay rabaan inay isticmaalaan qaacido oo wuxuu ii sheegay oo fiqi ah oo wax kale loogu talagalay ayay isfahamsiiyeen inay isticmaali karaan oo ah aqafu dararayn laba dhib midka yar marka waxay u fasirtaan hadday dowladda ka dhex baxaan in ay dhib tahay hadday joogaan inay dhib tahay marka waxay dhahayn hadday ka baxaan inay dhib badan tahay maqnaanshahooda marka waxay istusiyeen hadday joogaan laakiin oo fasaadkaasi ay qayb ka noqdaan beeri maaha qayb lagama noqonayo fasaadkaasi ay qayb ka noqdaan laakiin qayb yar ay ka noqdaan in ay dhib yar tahay markaasi joogistooda ay noqonayso lama huraan anagoo ku khilaafnay sababtoo ah macsida yaraan iyo weynaan ma gasho dhala qamra had lagu soo dhigo oo aad leedahay wax yaraan ka bana iyo haddaad dhahdo kulligeedan ka bana xadiisku wuxuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam maa uskira qaliiluhu fa kathiiruhu xaraam ana u kama qala nabi calayhi salaam waxa markay yiriin haddii ku saqraaminayaan hadday badin yihiin iyo hadday yar yihiin waa isku mid oo kama qala nabi calayhi salaam marka qofka macsida waa isku mid haddaad wax ka qaadato sababta quraanka markuu macsida ka sheekeynayo ilaahay wuxuu leeyahay walaa taqrabu zina yaan loo dhawaanin meesha macsida ka jirta inaad u dhawaato maaha ilaa waxaa lagu ogolaada oo keliya inaad joojinaysid oo awood aad ku joojisa aad leedahay isla markaasna inta ay hadda joogtan aad ku xadidaysid marka sifaadkaasi marka laga hadlayo fiqul munkar ee maaragtay fiqul maaragtay al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar fiqiga ka hadlayo waxa waaye in qofka uu daraaseeyo munkarka iyo fidnada jirta intay la eg tahay markaas kadibna uu daraaseeyo intuu awood u leeyahay oo uu joojin karo marka waxaan ula jeedaa qofkii uu ku milmay markuu ku milmay systemkii muduu jooga markii dambe ilaa heer wasiir uu gaaray systemkii oo laaluushkii wuxuu noqday number 1 kii wadaadka ahaa systemkii uu dhex galay waa system laaluush ah waa system maaragtay fasaad ah oo nooc kasta ah fasaad akhlaaqi fasaad dhaqaale fasaad siyaasadeed wixii oo dhan marka qofku muxuu noqonaa marka ma dareemayo nin sheekha tusaale soo qaatay wuxuu dhahay haddii oo guri aad wax karinaysid markaas basashi wixii oo dhan guriga urkii basasha ku faafayo marka caadi kula noqonayo adiga ma dareemaysid sababta wixii sanku ka galay oxygenkaaga oo kale uu noqday laakiin waxa qof hadduu banaanka ka soo galo oo albaabka markii la soo dhawo albaabku soo galo alla basalaha soo urayso dhahaya qofkaas marka meeshan ay dhib jiraan uu fahmaya marka qofka banaanka ka joogo laakiin qof gudaha already hawadiisa noqotay qayb kamid ah marka wixii qayb kamid ah jirkiisa uu noqday marka uu ku nagaaday marka quraanka taas macnaha oo ah watarabasto markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yiri watarabastan waad ku nagaateen oo ma aadan ka soo noqon isbedel ma samaynin khayrka xaggiisa ma aadin ayaa markaasi kadib intaas kaliya ma haddana wartabtum shakiyaaba idin galayo oo khayrka iyo islaamka iyo diintii waxa waa munaafiqiinta sifooyinkooda waa markasta maadaama qalbiga ay ka jiran yihiin qalbigaasi waa meesha qofka yaqiintu ka gaaro wuu shakinaa qofka marka wuxuu ku shakinaa hadda saas oo kale waa marka meesha aan tegay Soomaaliya safaradii safar kamid ah ayaa niman waxay yiraahdeen waxaan islaamkan in wax bedelayo oo khayr uu keenayo iyo wixii oo dhan waxay dhaheen waa siyaasad marka in nidaamkan qarbiga oo reer galbeedka iyo inaan raacno waa marka oo leeyahay qofka shaki ayaa ku abuuran wartabtum marka aqal marka دربيغاس سامay ismay maxna baatinuhu دربيغاس marka qaybna waxa waaye naxariis
raxmo ilaahay, qabow, raaxo, qayb kalena waa cadaab wa. marka ilaahay subxaanahu watacaala ha inaga dhigo kuwii u diyaar garooba maalintaasi dhibka badan, maalintaasi dadka ay kala cararayaan. ilaahay subxaanahu watacaala carabkeena ha ku khatimo laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah cinda almunya markuu malakulmowtku inuu yimaado. aqulu qawli hada waastaqfirullah lii walakum faastaqfiruhu innahu huwa algafuur الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.